magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ayaa gashay marxalad taariikhi ah iyadoo u diyaar garoobayso martigelinta dabaaldegga qaran ee maalinta xurriyadda Kenya ee Madaraka Day. Arrin muujinaya isbedel iyo horumar ka socda gobolka Waqooyi Bari Kenya si kastaba ahaatee diyaar garowga munaasabadan weyn ayaa sidoo kale iftiimiyay caqabado weli ka jira dhinaca adeegyada martigelinta iyo maalgashiga gudaha Wajeer iyadoo kumanaan qof oo isugu jira madax dawladeed marti sharaf iyo shacabka Kenya ay ku soo wajahan yihiin Wajeer ayaa si weyn loogu dareemayaa in magaaladan ay ka jirto ciriiri dhanka hoteelada iyo weliba goobaha casriga ee qaabili kara marti tiro badan sida uu sharaxayo gudoomiyaha ismaamulkaasi Wajeer Ahmed. It's the first time it's been held here, and this place has its own peculiarities. The biggest one being the distance between major settlements, which then comes with, all manner of little challenges and worries about bed space and all that. But tumejipanga. Kasoo arrimahan ay jiraan haddana xaaladan ayaa sidoo kale loo arkaa fursad dahabi ah oo wax weyn ka bedeli karta mustaqbalka Wajeer. Martigelinta munaasabadan heer qaran ayaa waxay sidoo kale kor u qaaday magaca iyo muhiimadda magaaladan ku taala bartamaha gobolka Waqooyi Bari, balse waxaa sidoo kale ay dirtay fariin cad oo ku saabsan baahida loo qabo hoteelo casri ah, xarumo shirar lagu qabto iyo weliba adeegyo tayo leh oo la jaan qaadi kara kobaca magaaladan. Wajeer ayaa mar loo doortay magaalada ugu amniga badan Kenya. Waa kan gudoomiyaha amniga gobolka Waqooyi Bari John Otieno oo sharaxaya. Building on this to make sure that all those who are coming for the celebrations, their safety is guaranteed. So I welcome each one of us, the entire country and beyond, for the Madaraka Day celebrations. Waxaa sidoo kale isoo taraya doodaha ku saabsan qaabka maalgashiga siyaasiyiinta iyo ganacsatada ka soo jeeda Wajeer kuwaasoo intooda badan hantidooda ku maalgeliya magaalooyinka kale gaar ahaan caasimadda Nairobi halkii ay ka horumarin lahaayeen ismaamulka ay ka soo jeedaan marka laga reebo maalqabeeno kooban oo maalgashi ku sameeyay gudaha Wajeer. Dowladda dalka ayaana garoon aad u weyn ka dhisaysa magaaladan iyadoo ugu dambeyn 25 bishan la qorsheeyay in la soo gabagabeeyo dhismaha garoonkaasi si loogu qabto munaasabada 1 June ee 2026 maalinta xurriyadda Kenya ku beegan.